gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Ismaan oo dib ugu laabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab isagoo la dardaarmay bulshada ku nool gobolka Hiiraan. gudoomiye Cali Jeyte Ismaan ayaa soo hadal qaaday falalka ammaan dari ee mararka qaar ka dhaca gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. shacabka waxaan leenahay qoryihiina qaata oo ku dhiirada in iska qabataan shabaabka ku jira gudaha magaaladan. maamulku wuxuu idin siin doonaa fursad aad ku soo gaarsiisaan xogta nabadiidka ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Ismaan oo la hadlaya boqolaal ka mid ah dadkii ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne. gacan waxaan kula dagaalami doonaa shabaabka qoryaha wata, gacanna waxaan iskaga qaban doonaa kuwa magaalada ku dhex dhuumanaya oo miinooyinka aasaya dadkana baadda ka qaata ayuu hadalkiisa sii raaciyay Cali Jeyte Ismaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan. waxa uu sidoo kale sheegay gudoomiyuhu in maalmihii la soo dhaafay uu ku sugnaa Muqdisho isagoo raadinaya qorshe lagu sii karo amniga dadka ku nool gobolka Hiiraan. sidoo kale waxa uu tilmaamay in qorshihiisu uu ku jiro in dib u heshiisiin dhab ah loo sameeyo beelaha wadadega gobolka Hiiraan. Cali Jeyte Ismaan ayaa ballan qaaday in dhawaan uu bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab isla markaana ay la imaan doonaan hogaamin dhab ah. shacabka Soomaaliyeed waa u cadaatay in shabaab aan ka adkaan karno, waxaan idinka rabnaa in gabar iyo wiil aysan ku kala harin markan. natiijo muuqata ayaan ka gaarnay halgankii aan hore u soo galnay bilokoor ayuu hadalkiisa ku soo gabagabiyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Ismaan. gobolka Hiiraan waxa uu ahaa gobolkii ugu horreeyay ee Al-Shabaab la tusay in shacabku ay iska celin karaan isla markaana aysan gumaysan karin. waxaana deegaano iyo degmooyin dhaca gobolkaasi laga saaray Al-Shabaab iyadoo ay iskaashanayaan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka. Al-Shabaab ayaana u arka gobolka Hiiraan inuu yahay halka uga furmay qulqulka looga saaray deegaano iyo degmooyin ee in ka badan 15 sano ay maamulayeen. wejigii koobaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab waxaa kooxdaasi looga saaray deegaano iyo degmooyin dhaca maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug kuwaas oo in ka badan 15 sano ay maamulayso kooxda Al-Shabaab. wejigan labaad oo ay ka qayb galayaan ciidamada safka hore ayaa la filayaa in Al-Shabaab looga qabsado deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed si halkaasi dadka ku nool ay u helaan harka dawladnimo si la mid ah dadkii ku noolaa Hirshabeelle iyo Galmudug oo ay dawladdu gaartay muddo 15 sano kadib. ma jeceshahay barashada luqadda Ingiriiska balse ma u weysay fursad aad ku xaadirto fasal caadi ah ama offline ah? haddaba Fahan Academy waxay ku haysaa xalkii aad kaga gudbi lahayd caqabadaas ka hortaagan barashada luqadda Ingiriiska. waxaynu si online ah waliba aad u fudud kugu bari doonaa Ingiriiska adigoo gurigaaga jooga waqti kasta iyo meel kasta aad dunida ka joogto. waxaynu idin diyaarinay manhaj dhammaystiran oo ka kooban 3 xir oo kala ah Basic English aynu ugu talagalnay ardayda bilowga ah ee aasaaska ah, Speaking English aynu ugu talagalnay ardayda doonaysa inay bartaan ku hadalka luqadda Ingiriiska, iyo Grammar oo ah naxwaha luqadda Ingiriiska oo dhammaystiran. si aad u hesho warbixino dheeraad ah iyo tusaalooyin la xiriir WhatsApp numberka shaashada kaaga muuqda. mahadsanid.